siyaasi Axmed Cali Faxle oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta qaybo kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxa uu si adag u dhaliilay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo maalintii shalay eedeymo u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ee wadani. siyaasi Axmed Cali Faxle oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay munaasabadaha ciidanka qaranka ay kaga faa'iideystaan arrimo siyaasadeed. siyaasiga oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayo waxa uu yidhi: waxa aan kelmad ka odhanayaa halkan shalayta waxaa ka dhacday xaflad loogu dabaaldegayey aasaaskii ciidanka ilaalada xeebaha. waxaa ka soo qayb galay raxan wasiirre ah. raxantaa wasiirriyi umay imanin inay ciidanka farxadda la qaybsadaan. waxay u yimaadeen inay xusbiga wadani halkan ka dacaadeeyaan oo halkan uga jawaabaan. xusbiga wadani inay u jawaabaan dee xukuumad bay u yihiin oo waa loo baahan yahay. laakiin Soomaalidu waxay ku maamulaadaa hoosba hadal leh. munaasabad waliba waxa ay leedahay hadalkeeda. iyagoo ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hor taagan ayaa waxaad moodaysay inay taageerayaashii xusbiga kulmiye la hadlayaan. arrintaasna waa arrin qaldan. ma aha bartikoolka ciidanka waxaasoo kale in laga hor yiraahdaa waa ceeb. waxaan intaa raacinayaa maxamed kaahin axmed wasiirkeena arrimaha gudaha wuxuu yidhi SNM waxaa abuuray aadan shiine iyo axmed dhagax. madaxweynaheenuna burca wuxuu ku yidhi maalintii burca la soo galay axmed mire iyo maxamed kaahin labadaba madaxay kaga dhacday. mas-uuliyiinta kulmiye talow halmaanka miyay u badheedhaan mise waa ka bis? labadan kornayl ee magicii SNM ku xabag dhakowsanayo walaalayaal SNM waxay dhashay Soomaaliland idinkaa xukuma. bulshadu way idinku dhaaratay inaa madaxweynayaal iyo wasiirre ka tihiin. waxaan leeyahay bulshada magacan aad soo celcelinaysaan ee SNM ee aad bulshada maalin walba miidhiyaha la taagan tihiin. halkan aan ka soo booday xadiid baan marooriyey, garaa'id baan ku findhicishay. walaalayaal ka daaya oo Soomaaliland bay dhashay. Soomaaliland ku xaragood, Soomaaliland ku faan. Soomaaliland bay dhashay oo ka weyne Soomaaliland aamin. ilaah baan idinku dhaariyay aamina Soomaaliland. oo kelmadan SNM kii lagu shahiiday iyo kii shahiidayba madaxbaa u tihiine ka xishooda bulshada. hadday jabhada abuurmeen idinka abuuray. jabhadaha xusbiga wadani ku dacaadeynaysaan ama ku eedeynaysaan jabhadda idinka abuuray. ta horena idinka abuuray, ta dambe ee soo socotana idinka abuuray. waxaan leeyahay walaalayaal, inamadii Soomaaliland ka tirsanaa ee ciidanka qaranka ka tirsanaa ee iyaga iyo qoryahoodiiba aad tidhaahdeen ordoo naga taga oo kuwa jooga una raaca aad tidhaahdeen, waa nin Soomaaliland ah, waa nin Soomaaliland kula sheeganaya. haddii uu maanta kuu soo jabhadeeyo uu kuu soo jabhadaynayaaye maadaa diray mise xusbiga wadani baa diray? waxaan leeyahay bulshada ka xishooda oo xusbiga wadanina eedda ka daaya. idinkaa jabhadda abuuray. dalmida iyo dadmida ayaa laydinku wareejiyey oo laydinkaga tegey oo la idiin dhiibay. maantana halkay marayso waa aragtaan. haddii ay jabhada jiraan horta dee kulmiya abuuray. annagu wax jabhada oo aanu abuuray iyo wax jabhada oo aanu taageersanay ma jirto. maxamed kaahin isagaa shalay lahaa buuraha gacan libaax wataa gacan libaax gala. taliyihii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaalilandna ciidankii Soomaaliland buu kala diray oo yidhi ordoo soo jabhadeeya, ordo oo naga taga oo lacag baa naga qaadataan naga taga oo lacagteeda nooga taga. markaa jabhadda waxaa abuuray iyaga. tii hore ee caarina waa ogeydeen nooca ay ku tagtay iyo sida ay ku abuurantay waa ogeydeen. muwadani baa abuuray mise maamul xumada dawladda kulmiye ayaa abuuray. waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Badda Cas, magaalada Berbera.